بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيارتي رفتي وين السلامي أرجع كداون إنسان أما تخلي إنسان وحديد وفيشيا وما لنما خميسة أفري طبعا نوفمبر لوضع كوني سجالي طبعا ما أنت واحد نكاد دونا تاريخ سيد محمد عبد الحسن. سيد محمد عبد الحسن وحو wax ku soo bartay dalka Saudi Arabia gaar ahaan magaalada barakeysan ee Makkah Mukarrama kadib wuxuu ka soo degdegay magaalada Berbera ee xeebta ku taala. sayidku wuxuu xilligaasi ku soo beegmay iyadoo xilligii gumaystuhu haystay guud ahaan dalka Soomaaliya oo kala qaybsanayd Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Faransiiska. sayidku markii uu ku soo degay waxa la weydiiyay aqoonsi ama tay sare dalku gal ah. wuxuu ugu jawaabay gumaysigii xilliga haystay dalku waa dalkaygii, waxa mudan ama habboon inaan weydiiyo aqoonsi qof ajnabi ah, laakiin anigu waxaan ahay muwaadin, saa awgeed lama weydiin karo aqoonsi aan dalka ku soo galay. waxay ugu jawaabeen maad mullah oo ah wadaad waalan baa tahay. sayidku wuxuu bogaadiyay dhammaan bulshooyinka oo u adeegsan jiray gabayo iyo waxyaalo la mid ah. kadib wuxuu u howlgalay sidii uu gumaysaha dalka uga saari lahaa. Soomaali Maxamed waxay ay tahay waa dad xoolo dhaqato ah oo reer guuraa ah. kadib wuxuu bilaabay sidii uu kula dagaalami lahaa, inkastoo ay ka codsadeen xabad joojin. waxa uu yidhi ama dalka iga baxa ama dagaalka ma joojinayo. haddaba waxaan leeyahay daawasho wacan oo wanaagsan taariikhdii sayid maxamed cabdulle xasan. qodobka ku xiga waxaan kusoo qaadanaynaa khadiijo ciise oo iyadna buraanbur taariikhiya samaysay oo aada u xiiso badan. waxaan leeyahay daawasho wanaagsan. numberka shaashada ku qoran whatsappkana iga soo qabta, follow instagramkana dheh, subscribe iyo like na ku dar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somali wakuma, Somali wakuma, sinantan la magacahay, sanku neefle moogolin, iga sarrayn karo. Soomaaliya waa dal baaxad weyn leh oo Ilaahay ku manaystay kheyraad badan, berri, webiyo iyo daaq. muuqaalkan oo waqti hore la qaaday waxa uu idin muujinayaa Soomaaliya asalkeedu inay ahayd dad reer guuraa. dhaqashada xoolaha nool oo uu geelu ugu horeeyo waa astaamaha dadka Soomaaliyeed ee caanka ku yihiin. si kale haddii loo muujiyana Soomaaliya oo leh bad aad u dheer waxay dhacdaa bariga Afrika, waxayna kulaashaa badweynta Hindiya, gacanka cadmeed iyo badda cas. dhinaca barigana waxa ay dhul wadaag la leedahay wadamada Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. waxaana la og yahay in Soomaaliya ay tahay dalka isku xidha Afrika iyo bariga dhexe. dhinaca ganacsiga waxay xiriir toos ah la leedahay wadamada kale ee qaaradaha dunida. qiyaas ahaan dadka Soomaaliyeed waxaa waqtiyadii ugu dambeeyay lagu sheegay in ay yihiin dad ka badan 10 milyan. inkastoo nolosha dadka Soomaaliyeed ay isbedbedel iyo marxalado kala duwan soo martay qarnigii tegay, haddana waxaa muuqata in dhaqashada xoolaha oo weliba geelu uu ugu horeeyo uu yahay laf-dhabarta nolosha dadka Soomaaliyeed. halkani waa Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, xilli dawlad awood leh ay dalka ka jirtay. muuqaalkan iyo qaabka uu askarigani u kala hagayo gaadiidka faras magaalaha maraya waxa uu muujinayaa kala dambeyntii uu dalku soo maray. dadka ayaa nolol maalmeedkooda si caadi ah u watay markii muuqaalkan la qaaday. Soomaaliya wixii ku horeeyay 1972 luqadda afka Soomaaligu waxay ahayd mid aan qornayn oo soo martay isbedbedel aad u kala duwan. dhaqanku waxa uu ahaa mid ay Soomaalidu aad u ilaaliso,
waxaana lagu bartay dadka Soomaaliyeed inay aad ugu fiicnaayeen martisoorka iyagoo inta badan dadka ku soo dhaweeya cad iyo caano. in haddii aan dib u eegno taariikhda Soomaaliyeed, dadka Soomaalidu waxay ahaayeen kuwa ay ka mid yihiin dad aftahana ah oo gabayada aad ugu wanaagsan, sugaantoodana ku cabiri jiray xaaladaha uu markaasi dalku marayo iyo waliba dhaqanka dalkooda. laakiin muwaadinimada ayaa lafaha uga jirtay. dhamaadkii qarnigii 19aad wadamada reer galbeedku Soomaaliya waxay u arkayeen dal muhiim ah qaaradda iyo gobolka oo dhan, taas oo ilaa maanta ay u arkayaan. waxaana xilligaasi muhiimadda ay siinayeen gumaystayaasha reer galbeedku qaaradda Afrika inay gumaystaan oo ay Soomaaliyana u tahay marin muhiim ah oo ay ka maamuli karaan danahooda qaaradda Afrika kaga xidhan. guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa xilligaasi kala qaybsaday 3 gumayste oo waaweyn, kuwaas oo kala ahaa Britain, Italy iyo France. waxaa sidoo kale qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed iyana ay u gacan galiyeen wadanka Ethiopia oo aynu jaarka nahay. xilligan Soomaalidu waxay u baahan tahay in uu hormuud u noqdo qof ay ku daba saftaan oo isaguna hiigsada sidii uu gumaysiga uga kicin lahaa dalka. Soomaaliya waa dad muslimiin ah oo si weyn u aaminsan dadka diinta Islaamka wax ka yaqaana. haddaba markan waxaa wanaagsan inuu Soomaalida hormuud u noqdo qofka diinta wax ka yaqaana. waxaana arrinkaasi u qumay oo hormuuda ka noqday macallin arday Quraan oo la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Xasan. sayidku isagoo ka faa'iideysanaya isku duubnaantii jirtay waqtigan iyo nacaybka dadka Soomaaliyeed ay u qabaan sanacadaha gumaysiga iyo reer galbeedka dalkooda ku soo duulay, ayaa sayidku noqday hogaamiye awood si tartiib ah u yeeshay ciidanna samaystay. 1895 Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxa uu ku soo laabtay dalka isagoo tacliin dhinaca diinta u badan ku soo qaatay magaalada barakaysan ee Makal Mukarrama, waxaana uu ka soo degay dekada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya. ismaandhaafkii ugu horeeyay ee isaga iyo sanacadaalihii gumaysiga waxa uu ka bilowday dekada Berbera markii uu ka soo degay sayidku oo askarigii Ingiriiska ahaa ee xilligaasi dekada joogay uu weydiiyay sharci ama dalku gal iyo dukumiintiyo cadaynaya meesha uu u socdo iyo sida uu u yimid. taas ayaa sababtay inuu si weyn sayidku uga cadhoodo oo uu askarigii ku celiyay, aniga ayaa dalka iska leh, adiga ayay tahay in lagu weydiiyo waxa aad dalkayga ku joogto. sayidku markii uu murankaasi dhacay, gumaystihii Ingiriiska iyo ciidankiisii ma aysan xidhin ee way yaraysteen oo waxa ay u arkayeen nin hawshiisu fududahay, waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay wadaad suufi ah oo waalan maadhmulla. markii uu gudaha u galay Soomaaliya, sayidku waxa uu bilaabay abaabul iyo kicin dadweyne isagoo adeegsanaya aftahanimadiisa suugaanta uu Ilaah ku manaystay. sayidku waxa uu kasbaday inta badan dadkii Soomaaliyeed isagoo gabayadiisa xilligaasi uu ku gubaabinayay dadka Soomaaliyeedna ay ka mid ahaayeen kuwa uu ku leeyahay, haddii aad tihiin dad muslimiin ah maxaad u ogolaanaysaan in ay dalkiina idinku maamulaan dad gaala ah oo dibadda idinkaga soo duulay. taasi waxa ay sababtay olole ka dhana gumaysihii oo uu Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uu ka yahay hormuud in dadka Soomaaliyeedna ay u tafaxaytaan. 1899 boqortooyadii Ingiriisku xilligaasi waxaa gaadhay warqad uga timid Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan taas oo aad uga yaabisay mas'uuliyiintii Britain ee xilligaasi. warqadda oo u badnayd hanjabaad waxaa ka mid ahaa, hadda idinka ayaa idiin taallaa inaad kala doorataan. haddii aad doonaysaan dagaal, annaguna diyaar baan nahay. haddii aad nabad doonaysaanna waa inaad bixisaan lacag canshuur ah oo aad dalkayga ku joogtaan. arrintaa ayaa la yaab ku noqotay dowladda Britain ee xilligaasi, waxaana diidmada qayaxan, dagaalka joogtada ah iyo hanjabaadaha sayidka ee soo kordhaya xilligaasi ay sababeen in sayidka ay dowladda Ingiriisku u cilaamiso inuu yahay wadaad waalan maadhmulla. gumaystihii Ingiriisku inta uu diiday fariintii xilligaasi sayidka uga timid ayaa waxa uu badarder galiyay dagaalkii uu kula jiray Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo ciidamadiisii daraawiishta ahaa oo ilaa iyo xilligan magacoodu uu ka diiwaan gashan yahay magacyada ciidamada Britain dagaalka la soo gashay intii boqortooyadaasi ay jirtay ee qaaradda madow gumaysan jirtay wadamo badan oo ka mid ah. Britain waxay isku dayday inay wadamada kale ee reer Yurub iyo kuwa Afrika ee gobolka ku noolba ay ka hesho taageero gacan oo ay ka gacan geystaan dagaalka ka dhanka ah Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo daraawiishtiisii.
sayid maxamed cabdulla xasan oo reer galbeedku ay u yaqaaneen maadmulla waxaa magaciisa lagu soo qoray bogga hore ee warbaahinta Britain ka soo bixi jiray xilligaas waxaana Britain ay ku dhawaaqday dagaal heer caalami ah oo sayidka ka dhana markii Britain ay ku dhawaaqday dagaal heer caalami ah warbaahinta reer galbeedka haba ugu badnaadeen kuwa reer Yurub xilligaasi waxa ay soo daabaceen hadalladii ka dhanka ahaa gumaysihii ee uu sayid maxamed cabdulla xasan uu u diray reer galbeedka fariimahaasna waxa ugu weynayd fariintan soo socota waxaan u dagaalamayaa dalkayga waxaan difaacayaa diintayda ma haysto waxaad iga qaadanaysaan sida dahab ama wax la mid ah waxaad iga helaysaan oo qura waa dagaal oo kaliya ayaa igala kulmaysaan haddii aad nabad doonaysaan iiga taga dhulkayga oo ku laabta dhulkiinnii aad ka timaadeen waa haddii aad nabad doonaysaan fariintan ayay ahayd hadalkii sayid maxamed cabdulla xasan xilligaasi sida aadka ah u gilgishay boqortooyadii Britain ee waqtigaasi jirtay fariintan ayaa sidoo kale lagu soo daabacay warbaahinta Mareykanka xaaladdu waa ay ku sii adkaatay gumaystihii sayid maxamed cabdulla xasanna waxa uu sii kororsaday awoodiisa ciidan 10,000 oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si saani ahna u yaqaana fardafuulka iyo shiishwanaaga ayuu diyaariyay waxaana uu isu diyaariyay dagaal uu la galayo dal dhaqaale iyo ciidan ahaanba aad uga awood badan talyaaniga iyo ingiriiska dagaalyahanadoodii waxa ay xabad joojin la saxiixdeen sayidka laakiin sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu bilaabay inuu sameeyo dagaallo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah nooca loo yaqaano guerrilla fighting. Anyway, the Mad Mullah was not so easily caught. He waited for a few days. He watched what was going on around him. He noticed that the Camel Corps watered their camels early every morning and their horses. And whilst they were busily engaged in doing this one morning, he and about 30 of his head men on ponies escaped out to the other side of the fort and made a dash for it. So that was the end, really the end of the little war. 1910 dowladda Britain waxa ay soo kordhisay ciidamadeedii dagaalka kula jiray sayid maxamed cabdulla xasan waxaana ciidankaasi xoogeeda ay geysay dhinaca waqooyi ee xeebaha ku teedsan oo ay ka soo degeen 1913kiina waxa bilowday mid ka mid ah dagaaladii ugu xooganaa ee dhex maray gumaystihii Ingiriiska iyo sayid maxamed cabdulla xasan dagaalkaasi xooganaa waxa ciidamadii sayidka ee daraawiishtu ay ku gaadheen mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee uu sayidku gaadhay waxaana ay jabiyeen ciidamadii gumaystaha iyagoo dilay taliyihii ciidamada watay ee xilligaasi Captain Richard Coffil dilkii Richard Coffil ayuu sayid maxamed cabdulla xasan isagoo fariin u diraya wadamada reer galbeedka iyo Britain waxa uu ka tiriyay gabaygan oo xitaa xilligii dagaalku uu socday ay soo daabaceen warbaahinta Yurub iyo Mareykanku sayidka oo dul taagan madaxii Richard Coffil oo meyd ahna waxa uu yidhi adaa Coffil oo jiitay oo dunida joogayne adaa jidkii lagu waday jimc la'aaneede jahannama la geeyo hadaad aakhiro jihato
xilligaasi kadib waxaa xoogaystay awooddii ciidamadii daraawiishta ee uu sayidku horkacayay adduunka kalena waxa uu sayidka u arkayay khatar heer caalami ah oo adduunka ku soo socota sayidkuna waxa uu kordhiyey fariisimihii ciidamadiisu ay ku lahaayeen dalka waxaana daraawiishtu ay dhisteen guryo dhaadheer oo istiraatiijiya kuwaasi oo ay Soomaalidu sheegto in lagu dhisayba dhoobadii lagu dhisayna lagu daray caana geel si kastaba ha ahaatee dhismayaashan ayaa ah kuwa ka cimri dheer kuwa biyaha lagu dhiso waxaana ay weli ku yaalaan oo laga heli karaa goobihii sayidka iyo ciidamadiisu deganaayeen haba ugu weynaato magaalada Taleex ee gobolka Sool oo ay qalcadihii sayidku weli ka taagan yihiin dhinaca kale Britain oo u aragtay inay guul darro taariikhi ay kala kulantay dilkii Richard Cofield waxa ay bilowday dhaqaale urursi iyo isu xaydxaydasho dagaal oo ay ka qayb qaadanayaan diyaarado dagaal oo lagu weerarayo sayidka iyo daraawiishtiisa. In previous encounters with the British, he'd always had the advantage of extreme mobility. He could move about that country so easily and quickly. The aeroplane reversed that, and we had the initiative, which was quite a new thing. gumaysigii waa laga guulaystay dalkana waa uu ka baxay sayidkuna hadafkiisii ayuu gaadhay waxaana uu noqday hogaamiye aad looga yaqaano qaaradda madow waxaana uu noqday nin ay ku daydaan dadka isbedel doonka ah ee qaaradda madow ku dhaqan daawadayaal intan waa qayb hordhaca oo ka mid ah barnaamijyaal taxanayn oo ahaan doona oo aan kaga sheekayn doono taariikhdii ummadda Soomaaliyeed iyo halgamadii ay soo gashay waxaana barnaamijyadaasi aad kala socon doontaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee Somali National TV. وهاجاك وحفلة تاريخ سيدكنا آد ولا نعلن وحنوح في قضاء كنا وضم بين قصة قاضينا خديجة عيسى برامبو كذا آد في صبغان وحلا كسود هذا دعوة شو عن ونكسو دنبال كان تبينيا دلعين إيا حمان دمال أديقون أعرق سياسي قدوهاني وحودون تامرشي كرسي قندوغانا يو دليل وانقوها يا
dheelaaskaagaan maqloo dhegaha iga jebinayee waa adigan dhiilaha cushoo dhaydeeda ku soo hirtee dhaystaada shinkeedu galay intaad doofka u maqnayd amaad dacadiid u tiil bal yaa dhugatiyo qaniin dhurwaayada kaaga jiray dhulkani qiimaha ka weyn inuu dhiibaal noqdee haddii talo lagu hor dhigo dhibkaad ka baqdaa jiree sideed u dhammayn rabtaa dhantaalka siyaasadeed xubinta dhiman ee gabdhaha haweenka ka dhiidhiyey inay xaqa soo dhacshaan intaad dhididka u qubow dhigaha taariikhda iyo dhabbahaad weydaarateen dhacdaba waa waayaheed ee intaan dhaqan guurku iman intaan layskala dhildhilin intaan dhirif ina hantiin lab iyo dhadig baan ahayn dhismaha aqal seeska iyo dhig iyo lool baan ahayn labays dhashayoo isurin labaysla dhashoo iskaba labays u dhaxdoo intaa isdheelitiraan ahayn hadduu dhacay saban xumaad raggeenna hadduu dhif yahay nin reerka u dhaamin kara midkii loo dhiibo talo intuu dhiftimaha furfuro hadduusan dhaqaajin karin dhaliisha ayaa iska leh waydnaan dhaadina waqeen innagaa dhagax loo lahayn ninkaynaan dhiiri gelin dhammays ma noqdoo hablow dhiggiisa ma tiigsadee haddiise dhankaad xigteen dabaylo ka soo dhaceen dhiiladu waa culus tahay ee rabbow soomaali dhowr taariikhda wixii dhaciya sooyaalkeennaa dhigoo markaa qaran uu dhutiyo markay dhacan tahay xurnimo arrini tahay dhabanahays halyeeye isdhaarsadiyo dalaan dhallinyara u kicin dhibaatada kama baxee bal inay dhaayaha furaan dhawaaqaygana maqlaan kuwaan isku dhiigannahay ayaan sii dhowrayaa howlahaan dhirindhirinayaa xaajadaan dheeraariyaa nasiibkoo noo dhashiyo waxaan dhur sugaa waqtiga naruuriya dhuunidoon midkaa dhalandhoolayee tahriibka ku dhiiradee biyaha dhumucdiya mugga leh badweynta dhex qaadayow ruuxaagaad dhaqaajiso dhibbaad sii korarsatee haddaad dayal moodilayd ogow dhaqashiya wanaag kalsoonaan iyo dhegsami dhulkaagaa lagu helaa midkaagaan dhoofaye intuu dhalankiisa rogo qayrkii isu dhiibayow waa iga dhaadhici la'dee adoo dhaladoo isuba adoo soomaali dhaba dhaayuhu waa garashadee adoo dhimirkaaga qaba dhallaanka habaabistiyo sideed dhalanteed riyaa xaqiiqda u dhaafsataa dhulkaagii hooyo iyo ciiddaadan dheemanka waa dhuuxii aabba iyo midkaad dhaxalka u lahayd adoo dhibirka uga tegey sideed dhalashada mid kale walaal ugu dhaadataa warbaahinta dhaawaciyo halaagiyo dhimashadiiyo dhambaallada laga naxiyo dhiilada uun tabinayee dhamacduu nacabkeennu shidii dhimbiisha u hurinayow dhibbaanta horraysatee dhalyada isu keen gashiyo inaan isku dhaabannahay oo aanan kala dhammayn nabadda salka dhigata iyo dhalaalkiiyo nuurka baxay deegaanada laysdhex galay dhaqaalaha kabanaya iyo dhismaha iyo horumarkiiyo wanaagga ma dheehataan noloshu waa tii dhoweyd maalmaha dheeraad heshiyo adduun dherag iyo hantile kollaba dhimashaa xigtee bulshooy dhadhan raacnimiyo wixii ceeb laga dhaxliyo dhegxumo waa laga durgaa shaydaan baa ina dhagroo dhuunkaal noo qooshayo hawaa ina dhaga tirtee rabbow noo dhaaf dembiga waxaanu dhitaysannoo dhibica naxariista iyo dhoolhaynoo wada da'oo dhammaan soomaali weyn sharciga oo dhaqan geliyo midnimaha ku dheersatoo dadkaygu ha boogdhaydee allow dhaxantiyo nafsiga dhowraarimo uga samey dhulkaygow aaminow mid kale kuma dhaafsadoo dhab baan kuu jecelahaye allow dhagarqabaha iyo dhurbeelaha khaa'inka diinlaawuhu kaa dhinto dhuroobaha kuu baxiyo halyeeyada kuu dhashaa allow gobannimo dhabiyo cisiyo sharaf kugu dhaqaan فنانكي خديجة عيسى علي إسحاق جبريل عقال واقع داوديال إلونا سابسي سبسكرايب يا لايك اللهم استعان وحيكي يا ساسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته